xilibliyaasha magaalada Burco ayaa maanta sameeyay shaqo joojin kadib markii sida ay sheegeen loo sheegay warbeen abuura kaasi oo sheegaya in xiriidhigta shirkada ajaaniba lagu wareejinayo. Xilibliyaasha ayaa soo bax balaaran ku sameeyay xiriidhigta horteeda waxaana goobtaasi ugu yimid maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo qaar kamid ah golaha deegaanka degmada Burco iyagoo dajiyay dadkii careysna una sheegay in warbeen abuura loo sheegay. Dadkii soo baxa sameeyeen waxa kamid ah hadaladoodii waxaanu ka cabanaynaa in lagu yiri gabigiinaba waa la idin iibsaday nin carab ay idin iibsaday ariga $6 ba miiska la idinka qaadaya maxay ay tahay markii la doonana waa la qalaya markii la doonana la qali maayo maxay hadii ay bayd maayo gabigiinaba waa iibsantiin xirada gali maysaan neefkiina arki maysaan kaliyaha la idinka hadaya beerka la idinka hadaya haraga la idinka hadaya sidii la doonaa la idinka yeelaya annaga waxaan nakiciyay inaanu maxay ay tahay hadallada aanu maqlay dibaatada aanu qabno hadii xirada loo guuro imka aanan haysanin arigu aanu gaarayn dawladda sharafta waxaan ku codsanaynaa annagoon dawladdeeda annagu caayeen aflagaadayna waxna u sheeganayn oo ay mahadsantahay markasta inayna siiso gawaadhi ayaanu ku codsanaynaa aanu ariga ku soo qaadano mar hadii xiradii fogaatay caayina mayna aflagaadayna mayno oo dantayada oo hadii ay baxugmaayo ururka ayaga soo sabaxay iblaha nafaqada magaalada Tagdheer Burco annagoo ka hadlayna oo lagu isayada xirada la idinka bedelaya faami karaarigina la wareegaya kii soo qaadaya waa laga qabsanaya marka ariga korkana la idinka qabsaya shaqada ku dari maayo annagoo ka hadlayna ariga iyaga sidii noogu qabay sharaf leh hadii ay baxugmaayo kii noo soo qaadaya wadano kii noo soo qaadaya wadana ariga iyaga iyo sida u dhilan sharaf leh ayaanu doonaynaa ariga iyaga wa barakaatu waxa weeyaan arrinkan mowqifkan maanta halkan la isugu yimid balaaran wuxuu ka socdaa ururka nafaqo la yiraahdo ee hiliblaha ariga ayaanu anagu nahay ka soconaa maanta waxaanu islahayn aaday isu kululeeya laakiin imka markuu noo hadlayna Maxamed Muraad waanu degnay waanu iswargarinay waanu qabownay waanu joojinayna faqaralada waanu joojinayna go'aankaanu hore u talaabsanaynay waanu ka joogayna talaabsigaanu qaadayna waanu ka joojin duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa isaguna la hadlay hiliblayaashii shaqo joojinta sameeyay waxaana uu yiri maanta waxa waxoogaa cabasho inaga soo gaadhay hiliblayaasha degmada Burco cabatinkaasoo ka bilaabmay war ay maqleen oo kullu dabayshu sidatay warka waanu ka qancinay waa isfahamnay waxaanu isku fahamnay dadka yaga inaan anagu u maqannahay marka lagu guurayo wax heshiis lagu yahay inta ka horeysana halkooda ay ku shaqaysanayaan wax dhibaato waana haba yaraatay aanan ka shaqaynaynin dadka laakiin arlada de war namiimiyu sheegay bay nacastu raacdaa buu oo dunida namiimiya jira waxa jira dad dawladii iyo dadkeedii u kala sheekeynaya baa jira dadkaas war soo gaarsiiyay warkaasina war xaqiiqatan aniga laftigeedu aan diidi lahaa hadan iyaga ahay weeye waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani Bulsha TV Burco.